wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo weheliyay wasiirka caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdi ayaa ka hadlay munaasabadda ciidda iyagoona fariimo kala duwan u diray bulshada Soomaaliland. Fariimaha ay dirtay wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland ayaa la xiriiray sidii la iskaga ilaalin lahaa xanuunka COVID-19. wasiirka diinta iyo waqaafta ayaa bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay goobaha la iskugu yimaado ka ilaaliyaan dadka waaweyn iyo carruurta. wasiirku arintani ka hadlayna wuxuu yiri maalinta caadi birti ku beegan jimcaha ah kulli daweynu ciidayna hadii la yiraahdo kulli gudidii la dagaalanka ama la tacaalida xanuunka coronavirus-ka ama COVID-19-ka oo wasiirka caafimaadku inuu la fadhiyo gudidina aan ka wada midnahay waxaanu doonaynaa habraacyadiina inaanu tilmaamay ka siino hadii la yiraahdo wasiirka taa u bixi doona laakiin waxaan runtii anigu aan leeyahay walaalayaal maalinta ciid waa maalin khayr badan waa maalin aad iyo aad u ajar badan waa maalin loo baahan yahay dadku inay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka bartaan sunnana waxa ah in qofku uu neef gowraco oo neefkaasuna uu ka yahay hadii alla ku oranyahay uu noqonayo neef maxaan ku dhahay caa'iladii iyo reerkii iyo qoyskiiba ka gudaya hadii la yiraahdo waa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu gowrac jiray caadana waxa uu ahayd in uu udxiyo sameeyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam nagu booriyay udxiyadaas inaynu dhamaanteen gowracno wixii taamarta iyo taagta u haya ee kari karaya sida darteed maalinta ciida shayga horeeya inuu qabanayna waxa weeyaan ugu muhiimsan marka salaad subax tukano inagoo waxba cunin oo afuran ayaynu maxaan sooman baan u jeedaa ayaynu u baxaynaa goobaha lagu tukanayo ciida goobahaasuna runtii maadaama xanuunkana wali jiro waxay noqon doonaan goobaha dabadda ah ee banaanada ah masaajidada laftooda meelaha aan laga maarmi kareynin iyadoo kala durkayo oo la xidhanayo maskiskii ama afsaabkii sida habraaci hore inoo sheegay aynu ka shaqeynay dadaalkeena 5 bilood aynu soo dadaalayna Ilaahayna inuu garab galay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caawiyay xanuunkiina Ilaahay subxaanahu wa ta'ala khafifiyay way jira dad dhintay oo naxariisto ila suduneeyo baa xaqiiq ahaan aynu ku haynaa reportka suduneeyo qof inay naga dhinteen Ilaahay dambiga hor dhaafo naxariisto oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka aqbalo Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala dambiga dhaafo dhigo xanuunka ku dhacay sidaa darteed waxaanu habraac ku samaysanay masaajidada in afsaab la soo qaato sijaayadana la soo qaato marka halkii uu laga sii wado qofka cumuumadiisu dhigan doona qofka afsaab ku xiran doona qofka masal ku xiranaya masalku ku xiran doona insha Allah intaasuna waa inta habraac loogu talagalay in masaajidada hadeen galayno waxa kale oo arrinka muhiimka ah ku darleen waxa weeye dadka waaweyn iyo carruurta yaryar hadii laga iman karayo in lagu dadaalo in laga yimaado oo goobaha la isku keenin fara badan ee dadka badan joogaan dhankiisa wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa isna ka hadlay arrimaha la xiriira ciidda isaguna fariimo kala duwan u diray bulshada Soomaaliland sadarteed waxaan faraynaa bulshooyinka reer Soomaaliland in salaada sida culimaduna ay ku talinayaan in lagu tukado dhulka banaan la isugu tago ee garoomada ah ee lana ilaaliyo habraacyadii horeba loo shaaciyay ee ku howlgalay wax badan Ilaahay naga ilaaliyay ugu horeyso dadku inay kala fogaadaan intii suuragal qofku inuu afka soo xidho ama maamada ku xidho ama maas mara ha samaysto ama maaska caadiga ah ha isticmaalee iyo sidoo kale qofku inuu ku dadaalo fara dhaqashada oo maalin ciidan kulliba loo baahan yahay nadaafad iyo qurux iyo udug qofku inuu nadaafada lagu dadaalo oo gacmo meelashada mar walba lagu dadaalo sidoo kale dadku inay iska ilaaliyaan in meelaha la isugu yimaado ee dadku ay ku badan yihiin loo baahnayn qofku inuu ka taxadiro isaga ehelkiisa carruurtiisa iyo waalidkiisa inuu kala taliyo waxa kale oo aad ugu dardaarnaa dadka da'da ah oo inaguna xanuunkan inuu dhibaato gaar ah u leeyahay inay si gaar ah loo ilaaliyo oo laga warhayo sidoo kale dad kale xanuunada ay la nool yihiin ama ha noqoto macaan ama ha noqoto dhiikar ama ha noqoto wadna xanuun ama kuwa neef mareenka ku dhaca kuwana in si gaar ah loo ilaaliyo oo mar walba lagu waaniyo lagu garab joogo talada ayna islaaliyaan inay isdhowraan inay ka fogaadaan waxyaabaha keeni kara xanuunka inay qaadaan waxa kale oo faraynaa dhammaan goobaha la isugu yimaado sida hoteelada maqaaxiyaha meelaha carruurtu ku ciyaaraan in habraacyadii ahaa nadaafada iyo afsaabka iyo kala fogaanshaha iyo kullu intii suuragal ah in la ilaaliyo sidoo kale maalinta ciid waa maalin dadku ay socodku bato oo gaadiidka aad loo isticmaalo taa lafteedina in la taxadiro Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa